السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalaha qaaliga meel kasta adduunyada dacaladeeda ka joogtaan. maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha ama fitamiinada markii aragtid inaad uur qaadid. uurka Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa bixiyo, awlaada ilaah ayaa bixiyo. qofku doono wuxuu iskugu daraa, qofku doono wuxuu siyaa gabdho kaliya, qofku doono wuxuu siyaa wiilal, qofku doonana waxba ma siiyo. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka barya intaas ilaahay inuu siiyo, intaas tan ilaahay subxaanahu wa ta'ala baariha uga dhigo. aamin ya rabbi. adduunka joogtaan maanta waxaan rabaa inaan idin qaybsado waxyaabihii aan isticmaalay before pregnancy and after pregnancy. marka ugu horeysa intaan uur qaadin iyo markii aan uur qaado kadib iyo markii aan dhalay insha Allah aan idin qaybsan doonaa. waxaa jira walaalo badan oo ila soo xiriiray oo aan isku naqaano iyo kuwa maxaan ku dhahaa Snapchat iska naqaano oo ila soo xiriir qoraal iyo soo qoraa baayo macaani haddii maxaan ku dhahaa wax dheer tahay ama faa'iido noo faa'iideyn kartay waa jeclaan lahayn. marka walaahi waan isku dayay inaan u sheego waxaan ku awoodo. marka waxaan ku dhahay uurkan ilaahay ayaa bixiyo, awlaad ilaahay ayaa bixiyo. marka inta haysato ilaahay baariha uga dhigo, ilaahay caafimaad ha u siiyo. inta haysan ilaahay ha siiyo subxaanahu wa ta'ala. marka waxaan bilaabaynaa kana ka bilaabaynaa vitamin C. waa vitamin C waa ujeedaan vegan waaye. sinka ku xigo, folic acid ku xigo, vitamin D ku xigo. intooda waa vegan option waaye. maxaan ku dhahaa wax oo maxaan ku dhahaa halaal waaye. haddii aad vegan maqasho waa qudaar, ma fahantay? bas ani horta daawada ma isku fiicnin sida aan u isticmaala haddana waxaan oh my god intaan kaniin ma cuni kartaa waa may option kale waa inaan raadisa haddana. bas marka aan isticmaalayana waxaan kala weydiistay dad oo macnaha aqoon u leh, aan kala tashtay ma cuni karo iyo in kaleete. gabadhan waxaan ka codsanay gabar walba inta aad uur qaadin please and please waxaa fiirisaa ironkaaga maxaan ku dhahaa ma wanaagsan yahay oo meesha lagu rabo ma jooga ha oo may haddii uusan joogin please kor usoo qaad ironkaaga. waxaa kusoo qaadi kartaa waxyaabo badan ayaa jiro sida broccoli, spinach iyo berries, cuntooyin badan insha Allah ayagana kasoo hadli doonaa. maanta laakiin waxaan ka hadli doonaa kaniiniyaasha ama daawooyinka aan cunay oo vitaminiska ah. kan aan kusoo haray kan haddana usoo guuray markii aan maxaan ku dhahaa aan 2 bilood camal bil iyo bar aan cunay kaas. kana haddana cunay waxa waaye fertility-ga xoojaya maxaan ku dhahaa markaa haddana cunay oo maasha Allah uurkii aan qaaday haddana waa joojiyay haddana kana isticmaalay. kan waxaa lagu talagalay marka hooyada ay uurka leedahay waxay ka helaysaa fitamiinada ay u baahantahay. waa 19 fitamiin ku jirto, iron ku jiro, zinc ku jiro, vitamin D ku jiro, B12 ka helaysaa, folic acid ka helaysaa. marka waa kuwii aan soo cunay oo tusinayay maxaan ku dhahaa oo hal meel lagu wada sameeyay waaye. marka hal xabba ka cunaysa. kan haddana usoo guuray markii aan dhalay alxamdulillah oo maxaan ku dhahaa breastfeeding aan noqday oo markaas babyda aan nuujinayay. 2 xabbo oo nooca brown ah iyo xabada kale omega 3 ga qaadanayay ilaa hadda waan isticmaalaa alxamdulillah. marka in la kala faa'iideysto aad u wanaagsan tahay. marka wax walba oo idinku dheerahay ama idinkaga aroonahay waxaan jeclahay idiin soo gudbiyo walaalahayga qaaliga. maanta video ka duwan yahay cunto karis ma ahan waxa u gudbinaan waan jeclaa markaan soo sameeyo laakiin walaahi wax walba waqtigooda ayay maxaan ku dhacaysaa. maanta ayay noqotay inaan idin la qaybsado. marka insha Allah haddii aad ka faa'iideysto walaalaha kale la qaybso ama gabdhaha walaalahaaga insha Allah videoga la share garay aad ma santii wixii talo iyo tusaale ahna maxaan ku dhahaa hoos commentiga igu reeb. marka insha Allah inta aan wada kulmi doono videogan video xigi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. screenshot oo ka qaadan kartaa haddii aad u baahan tahay insha Allah maxaan ku dhahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.